2.3 saamaynta Killer Eti Killer waxay halis gelisay dayax-gacmeedka dunida, daraasad lagu ogaaday. Haddii asteroid weyni uu ku burburo dayaxa sanadka 2.3, qaraxan aadka u weyn waxa uu u diri doonaa burbur ku soo qulqulaya dhulka kaas oo khatar gelin doona satellite-ka islamarkaana abuuraya qubays meteor ah oo cajiib ah, sida ay sheegeen cilmi baadhayaashu. Horaantii sanadkan waxaa jirtay cabsi kooban oo laga qabay in asteroidka ballaciisu yahay 6 mitir, 2 foot ballaaran, ee loo yaqaan 2.24, kaasoo ku filan in lagu simiyo magaalo, uu ku dhufan doono dhulka Deember 2.32. Waxaa la siiyey fursadii ugu saraysay 3% garaacista meeraha gurigeena ee ay saynisyahanadu weligood ku qiyaaseen dhagax weyn oo hawada sare ah. Indho-indhaynta dambe ee teleskobesyada ayaa si cad u diiday in si toos ah loogu dhufto dhulka. Si kastaba ha ahaatee, rajada ah in ay ku dhici doonto dayaxa ayaa kor u kacday 3%, sida laga soo xigtay xogta laga helay teleskobe James Webb ee May. Khatarta dayaxu ku dhufto 4.3. Kala duwanaanshaha goobaha suurtogalka ah ee matalaya jaalaha ee 2.24 EDIS. 2.32. NASA Jubile Enter Forner Earth Object Studies. Daraasad horudhac ah oo cusub oo aan dib u eegis lagu samayn ayaa ah tii ugu horeysay ee lagu qiyaaso sida isku dhaca noocaas ahi u saamayn karo dhulka. Waxay noqon doontaa asteroidkii ugu weynaa ee ku dhaca dayaxa muddo 5 oo sano ah, sida uu u sheegay Paul Weigert oo ah qoraaga daraasadda hormuudka ka ah ee Jaamacadda Canada ee Western Ontario. Waxaa la xidhiidha, saynisyahanadu waxa ay isku ekaysiiyeen Bennu oo ku burburaya dhulka Sebtembar 2. Ma qurux badna? Saamayntu waxay noqon doontaa la barbardhigi karto qarax weyn oo nukliyeer ah marka loo eego tirada tamarta la sii daayo, ayuu raaciyey. Ilaa 1 milyan kilogaram, 2 milyan oo rodol, oo walxo ah ayaa kasoo toogan doona dayaxa dushiisa, marka loo eego tusaalooyin taxane ah oo ay sameeyeen cilmi baarayaashu. Haddii asteroidku uu ku dhufto dhinaca dayaxa ee u jeeda dhulka, taas oo ah qiyaastii 5% fursad, ilaa 1% qashinkan, waxaa jiidaya ufjiidka dhulka maalmaha soo socda, ayay yiraahdeen. Sida habad. Jawiga dhulku wuxuu ka ilaalin lahaa dusha sare, dhagaxyada dayaxa ee cabirkoodu yahay milimitir ilaa sentimitir, ayuu yidhi Weigert. Laakiin saadaasha hawada sare waxay awood u yeelan karaan inay burburiyaan qaar ka mid ah dayax-gacmeedyada, waxaana la filayaa inay jiraan kuwa badan oo ku wareega meeraha marka la gaaro 2.32. Dhagax cabirkiisu yahay sentimitir oo ku socda 10,000 oo mitir ilbiriqsikii waa wax badan sida habad, Weigert ayaa yidhi. Maalmaha ka dambeeya saamaynta, waxaa jiri kara in ka badan 1 jeer tirada caadiga ah ee saadaasha hawada khatar ku ah satellite-ka dhulka, ayuu raaciyey. Dhanka kale, kuweena dhulka ah waxaa loola dhaqmi doonaa qubays meteor ah cajiib ah oo iftiiminaya irka habeenkii, ayay tiri daraasaddu. Laakiin fursadaha hadda jira ee ku dhufashada tooska ah ee dhinaca dhow ee dayaxa ayaa weli ah kaliya 2%, Weigert ayaa xoogga saaray. Asteroidka lama filayo inuu dib u muuqdo ilaa 2.28, sidaa darteed dunidu waxay sugi doontaa inay wax badan ka ogaato. Haddii si toos ah ugu dambayntii la ogaado in ay u badan tahay, bini'aadanku waxay u badan tahay inay haystaan wakhti ku filan oo ay ku qorsheeyaan howlgalka lagu badbaadinayo dayaxa. Waan hubaa in la tixgelin doono, Weigert ayaa yidhi. Asteroidku waa kala badbalac ahaan wuxuuna leeyahay 1% cufka Dimorphos, kaas oo hammigii NASA ee DART uu burburiyey 2.22, isagoo si guul leh u beddelaya meesheeda. Haddii 2.24 uu ku jiro koorsada isku dhaca dayaxa, waxay noqon doontaa bartilmaameed wanaagsan imtixaan kale oo difaaca meeraheena, Weigert ayaa yidhi. Laakiin haddii kale, isku dayga in la leexiyo shay soo dhoweeya dhulka waxa ay noqon kartaa wax yar khatar ah, ayuu raaciyey.